kusoo dhawaada waraysigaan aan ula yeelanayno fanaanka weyn ee Soomaaliyeed ee Xariir Axmed oo iminka ku sugan magaalada Jigjiga ee Soomaali Galbeed. Xariir ayaa in badan waxaad naga codsateen inaanu maaragtay haddii Ilaahay yiraahdo mar uun idin soo hor fariisino dhowr su'aalood diiran ayaanu u haynaanu jecelnahay inaan ogaano. Fanaankan ayaa showyo fara badan ka dhigay magaalada Muqdisho, Jigjiga iyo waliba dhawaan Hargeysa. waliba waxaanu xog ku haynaa showgii Hargeysa dhawaan ka dhacay meel la kala istaagin la waayo dadkii faray ay ka bateen si weyn loo soo buuxiyay haddaba Xariir ayaanu dhowr su'aalood weydiinaynaa waxaanu ku bilaabaynaa marka hore soo dhaweyn iyo mahadcelin sida sharafta iyo karaamada badan oo Xariir looga yeelay waraysigan naga aqbalo. Xariir soo dhawow. وهجاج بل هدي عنه وحير ديجو يرى جلعنا فانكي سوغان تنتظر كسو بيرنين سير حكوها يوحد هانجر تدك عن جعلين فانكا يسحسان كتب قاتان أمر جيستان حضنا وحام مقطع إن نحبور الشيوخ كم تهاي تدك ما عيدا ومرك السوق على الصومال يصير وين وقرنيسو سيد عرنا سوق قبتين حريم عبد الحافظ horta way jirtaa nin ma ahayn fanka ku rajaweyn ama hobby u leh inuu fanka galo laakiin qadarta Ilaahay ayaa meesha taala anigii oo wixii jeclay maan sarkay anoo ku dhex jira laakiin nin hobby u leh ma ahayn nin qof ka dhaxlay ama dhihi kara adeeraday aw yaashay ayaan ka dhaxlay hidaba ma aan u lahayn saan reerunahay waa gartay qadarta rabbi maadaama haddana meeshii taalo waxaan arkay aniga waxa igu dhaliyay nin waxaan iska ahaa dhaantooyinka iska jecel oo inta badan iska ciyaara anigu intii aanan fanka ku soo biirin qorooyinka dhaantada jabiyaan ahaan jiray waa gartay markaan wixii dhex galay oo ila sii fogaatay anoo heesayaan sarkay meelaad ka soo noqotaan weydaa isla tahay ay waa gartay dhaantadii jiibinteedii iyo heesuhu xoogaa farqi baa u dhexeeya inkastoo sugaan isla yihiin bal isbedelkaas yala taabo no isbedelku markaad fanka dhex gasho eed aragto meel lagu heesayo ama heese la xafidayo eed iskala xafido ee dadkii dhex fadhido maalinka dambe de waxaa lagu dhihi hees ama heestan duub waa gartay marka hasaan saa ugu dhex fadhiyeen dadka heesaya ama aan iskala joogay de wixiina fankiina dhaantadu aynan ka maqnaynaya wixii mar muusik la tumayo mar wax la laxamaynayo iyo mar la heesayo inay noqotay waa gartay waxaa jirta inaad markaa siday rabtaba ha ahaatee muddo wixii say usoo socdaan inaad masraxii soo istaagtay heestii u horreysay oo qaaday ma xasuusta heestii horreysay aan qaaday waxay ahayd hees aanu aniga iyo walaalkay Faysal Muniir iyo walaalkay Suldaan Seeraar Guhaad aanu sameynay aanu fanaanada waaweyn xidhnayn waa dirir dhawe iyo goday miya dirir dhawe iyo goday mid baa ka horreysay aanu saddexnay aniga Faysal Muniir iyo Suldaan Seeraar dirir dhawe iyo goday aniga Suldaan kaliya ahaydeen aniga Suldaan kaliya ahaynaa waan usoo noqonaynaa dirir dhawe iyo goday bal taa adiga saddex aad tihiin ka dhacbalad taan saddexda nahay markaa waxaa naga yar abwaansanaa Suldaan Seeraar oo heesta sameeyey marka heestu hees wadaniyay ahayd oo ammaanaysa waddankan Soomaali Galbeed ama deegaankan aan degannahay waa gartay saasay markaa ahayd marka heestaas maxaad qaybta adigu ku lahayd maxaad ka xasuustaa maadaama ay hees wadaniya ahayd Soomaali Galbeedna loo qaaday annagoon doonaynaa siyaasad dhex galno haddana og xaaladda Soomaali Galbeed waana ku faraxsanahay adigoo nin dhalinyaro ah iyo jiilka kaa dambeeya inay Soomaali Galbeed leeyihiin aysan lahayn dalka Ethiopia soo dhawow hore gudagal horta kolley heestu hees wadaniya iska ahayd oo waddanka ka sheekeynaysa nimcada taala iyo barwaaqada iyo horumarka dhinacyo badan bay taabanaysa halkaa kusoo yara celisay
fiican kuwa maqal heestu waxay taabanaysay baa tiri heestu hees deegaanka ka hadlaysay ahayd barwaaqada iyo horumarka iyo nimcada lagu jiro markaa bay tilmaamaysa iyo tilmaamaysay haa waa gartay waxay tilmaamaysay nimcada iyo barwaaqada dhulkeena taalla iyo in laga faa'iidaysto haa waa gartay waxaa kaloo jirtay adiga suldaan seraar xilli hore 2014 heero malaynayo adaa isixi doone heestii dirir dhabi iyo goday xilli masraxii la soo istaagay iska adkay waxay iska cusbaayeen haddana adiga iyo suldaan baa soo garab istaagay arrintaa warkeedaysi haa heestaa dirir dhabi iyo godayna waxaa sameeyey saaxiibkay suldaan seraar halkan aad uga salaamayo oo iyaduna tii hore aan kugu soo sheega la mid ahayd oo ka hadlaysay dirir dhabi iyo goday iyo nawaaxigaas oo dhan waa gartay taasna suldaan baa sameeyey waktiga aad sheegtayna way ahayd waa gartay waxaan ogahay suldaan inay naftu idiin dhaxayso caysho milix aan isla tihiin dad walaalo ah oo aada isku jecelnaatiin ayaan ogahay hadda ka horna waraysi aan isaga laftigiisa suldaan seraar wareysanayo oo si weyn halkaan uga salaamayo ayaa maaragtay daawadayaashu ay mar su-aal ay weydiinayeen bay soo qaadeen si xaqiiqatan hufan oo sharaf iyo karaamo oo kaaga hadlay laakiin isaga iyo adigu maadaama aad nolosha isla wadaagtaan oo dad walaalo ah oo isku meel kusoo barbaaray oo duruuf iyo horumar iyo wanaag ba isla soo qaatay aad tihiin maxaad nooga sheegi kartaa dabeecadihiisaad leedahay horta aniyo suldaan seraar waa run wakti badan waan soo wada qaadanay nolol adag iyo mid jilicba waan soo wada maray sida aad sheegtayna ceesho milix baan isku ahayn ilaa imikana sidii ayaan nahay laba qofoo waxaan nahay dabeecad fahmay dee sida maanta nin walaalkay oo kale ah aan ka jeclahayba dee aniga isagu sidaan isku ahayn aan haddana isku nahay laba qofoo marnaba aan kala go-ayn oo nolol soo wada qaaday fankana isku meel ka soo bilaabay aad ayaan isagana halkan uga salaamaya ugana mahad celinayaa waa gartay laakiin waxaan ku weydiiyey dabeecadihiisa gaarka ah maadaama aad nolosha aad in badan saaxiib ku ahaydeen maxaad nooga sheegi kartaa odayga aan ku yara tuurna kaftanka waa furan yahay suldaan waa nin aada u dabeecad fiican gaali islaamna la dhaqmi karo markaa dabeecaddiisa waxba kama sheegi karo waxaan wanaag ka ahayn waa gartay waxaan rabaa inaan kuu sheego aan horey kuugu sheegin in daawadayaashana la wadaago suldaan laftigiisa ayaa la hadlay waxaanu ku yeray warniyo ninka xariira warkiisa isii intaa hadda aad tiri oo wanaag ah iyo in lamid ayuuna kaa sheegayay si wanaagsan aada iyo aad aada iyo aad waana waxa lagu farxo dad dhalinyaro ah walaalo ah oo wada shaqaynaya oo isku deegaan ka soo jeeda haddana maaragtay wanaag iyo horumar maaragtay iyo qalbi xaarni uu ka dhexeeyo waa wax wanaagsan halkan haddaanu suldaan uga tagno waxaad bal iga warantaa nin dhalinyaro ahaad weli tahay horta meeqaa jirtaa adoo raalli anigu hadda waxaan gelayaa baan malay 28 sanadka oday baa tahay haa oday baan noqday oday masha allah waxaa kaloo jira xaasi ciyaal baan filaya haa xaaskayga halkan ayaan aada uga salaamayaa iyo ciyaalkaba aada bay wacan yihin iyaguna aad baan u salaaminaa dumaashadeen iyo ubadkaba ilaahay subxaana watacaala isukiin barakeeyo isukiin daayo waxaan ugu farxawaya nin dhalinyaro ah oo haddana maaragtay mas-uuliyadda intaa la qaadayo 28 sano jira aad iyo aad ba maaragtay wax loogu farxay tahay inkastoo dadkii hore anaga la dhalaya awooyaasheen yaraan ay kusii guursan jireen intaa ka yar haddana waxaa moodaa jiilalkan dambe hadda soo kacay inay daahiyaan guurka waa ku mahad celinayaa saaxiib waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo dabcan adiga iyo dumaashaday jacayl iyo wanaag fara badan baa ka dhexeeya qof aan nafteeda ka dhexaysa weeye dumarkuna waxay qeyb weyn ka qaataan horumarka raggooda ayay ka qaataan waxyaalaha ay garabka kugu siisay ee kula garab istaagtay habeen iyo maalin si hagar la-aan ah guud ahaaneed maxaad nooga sheegi kartaa horta xaaskayga ciyaalka aad ayaan halkan uga salaamayaa
waxay la garab istaagtay ama markasta igu dhiirigelisaa inaan fankan iskaga hadho iyo hawlihiisa. ciyaalku intaynan aqliyeysanin eran dhihin aabihiin waa fanaan, adu kolley tusaalooyin badan bay siisaa. haddana wuxuu markuu ilaahay kaa jaro waa waxaad ka hadhay hadduu ilaahay nafta intaa inagu simo. marka talooyinkeedu way badan yihiin, aday la talisaa. maasha allah, hadday ku jiray fanka iska daayo ciyaalku intaysan caqliyeysan, waxaan u malaynayaa tala dhaxalgal ah oo ku taabatay inay ku siisay. aada iyo aad, aada iyo aad. maasha allah. wahagaag dabcan dadku marka intaysan isguursan ka hor haasaawe iyo jacayl iyo waxbaa jira. dadka soomaaliyeedna waxaa la yidhahdaa, ragga soomaaliyedna waxaa la yidhahdaa romantic ma ahan. laakiin markastoo barnaamij samaynayno dadka aan wareysanayno, qofka aan wareysanayno, dadka u dhow waan la hadalnaa. waxay soo gaartay layina xaqiijiyey inaad dhinaca romantiga iyo jacaylka xaaska aad u googo'day oo ku talax tagtay. maxaa arrintaa ka leedahay? de horta kolley laba qof oo meel wada jooga ama dee isqabaa. garatay. inagu dee dadkeennii hore romantigii waxan maynan aqoono, waxan waxay soo gaadheen ma ahayn. laakiin shaqadii qoysnimo iyo dee anigu mudnaantii aan lahaa de qoyskayga ku dhaqan lahaa kolley waan ku dhaqaa. maasha allah, maasha allah. allah isku daayo. waa hagaag, haddaan firarka halkaa uga soo tagno iyo introductionkaas guud, heeso fara badan oo kale ayaad qaaday. heestee ayaad ugu jeceshahay heesahaaga kuwii hore iyo ilaa haddan ku jirno oo 2020 dhammaadkiisii ah? heesta aad is leedahay ama labada heeshood aad is leedahay alla ilaha labadaasu waa biyo kaba dhibcaan iyo adoo sababeynaya waa maxay? heestii aan xaaskayga u qaaday ayaan ugu jeclahay. soo dhawow, hore ugu soco. heestaas ayaa heesaha iiga duwan kollegii. heestu magaceed yaana kuu sameeyey? heesta waxaa sameeyey abwaan la dhaho Ismaan Jagnaayo, on halkan aada uga salaamayo. laxanka anigaa saaray, muusiga waxaa ku ladhay saaxiibka Mawlid Xasan Faarax, on halkan isna aada uga salaamayo oo fankayga gacan weyn ka geystay. maasha allah, waa gartay. marka heestaasaa iiga duwan baan dhihi karaa heesaha. heestaas marka dabcan xaaskaagaad u qaaday, dareen gooniya kuu leedahay, qor noloshaada iyo qoyskaaga ay saameynaysaa. bal ayadoo bilaa muusiga haatan, bal dadka soomaaliyeed ee ku daawanaya asxaabta ee laftigooda jacaylka cusub ah, qaar jacaylkooda uu duugoobay, qaarna aan weli faraha waxba ku haynin, say tusaale u noqoto, bal na maqashay. waa si wanaagsan. heestaas waxaa la dhahaa najax. waxaa la dhahaa sida naqayo roobka neecawdiisa, nasab weeye nasiibkaygu tooysiiyey, waa naruura araggeeda lagu naaxo, niyadayda magaceedu ku noqnoqoy, waa naruura araggeeda lagu naaxo, niyadayda magaceedu ku noqnoqoy. waxa weeyaan waa kal iyo laab baad u qaaday, maasha allah. waan arkay 2020 soo baxay dabcan, iyadoo muuqaala dadku aad bay u daawadeen oo la arkeen. waxaan jecelahay oo kale heestaas waxaad ku jeceshahay waa garanay. heesta kale aad is leedahay waa laftigeedu muhiimad bay leedahay, bal nooga yara dhacyada. hees kaloo waxaa jirta la yidhaahdo haddii aan xabaal galo iyo xambaari maysida ifka igu xamaaneen, oo ka hadlaysa nolosha bili-aadanka. heestaas waxay saameyneysaa dhammaan bulshaweynta wixii maaragtay dadkoodu la dhashay ama ehelkoodu intuu maal leeyahay haddana aan dadkoodii kor u qaadayn, ayay heestaasi ka hadlaysaa. heestaas waxa weeyaan haddii maanta isagii oo caafimaad qaba oo ordaya u tago uu reerkii wax weydiisto, lagama yaabo markaa in wax la siiyo ama ay u gartaan. laakiin maalinkuu xabaal galo ama uu dhinto waxaa dhici karta dadkii aan markaa diiftiisan ka muuqata aan arkayn inay intaasoo halaado geela keenaan oo ay qalaan oo ay xabaashii baabuur wax kasta. markaa maalinkaas waxba isagu uguma taalo, uu ka dhintay oo qabriguu ka gelayaa. marka heestaas waxay tidhaahdaa haddii aan xabaal galo iyo xambaari maysida ifka igu xanaanee.
malaha waxaad leedahay adduunka inta la jooga waxa la isku yahay aakhirana qof walba iyo camalkiisa weeye iga warqab aakhiro qof kastii iyo camalkiisu la tegaya ahaa. markaa bini aadanka waxaan leeyahay dad ilaahay waxaa jira uu hantiya maal isugu daray, haddana dadkoodii aan daryeelin baad arkaysaa. baa gartay marka waa hees wacyigelin iyo fartiin isku wada iyo dardaaran. waa gartay waxaa kaloo jira hees kale oo aada wada qaataan xiis oo la yidhaahdo babe ama baby say Soomaalidu dhahdo. way jirtaa. bal soo dhawow ayadu maxay salka ku haysaa muuqaalka dabcan dad fara badan baa daawaday. soo dhawow. heestaa waxaa nala soo jeclaaday nin aan aada saaxiibo u nahay oo Maraykanka jooga, ismaan bile caymoy ayaa laxanka iyo ereyadaba leh. wuxuuna nala jeclaaday aniga walaasha xiis inaanu ku luuqayno, sidiina waan ugu luuqaynay. waa gartay bal qaybtaadii inkastoo san xiis iminka lala joogin hawadan aanu salaan u marinayno, qaybtaadii maxaad ka xasuustaa iminka ereyada heesta? bureeqadan jeclaayey haddan baa la leeyahay, sowma soo boqoleen barataad ku nooshahay baryo kuma naga ayaan kasii xasuustaa. waagaag dabcan dad badan oo kala duwan ayaad la heesti doontaa haddii laha yidhaahdo lala soo heestay. yaad jeceshahay mustaqbalka dhow inaad maaragtay isla heestaan haddii ala yidhahdo? nin cabdixaafid oo kolley horta fanaaniinta waan jeclahay inaan la heeso. markaa hadda ma kala sooci karo oo qofkaasaan la heesi karaa iyo qofkaasaan waxaa la samayn karaa ma dhihi karo. xaalado waxaa jira marmarka qaar aada isku meel intaad timaadaan waxaad wada qabataan ama aada shaqo wada qabataan. marka kolley insha allah waxaa laga yaabaa inaan wada shaqeyno on heesano soo wada qaadno fanaaniinta Soomaaliyeed meel kastii joogaan. marka hadda waktiga iyo wacyiga awgeed waa iska kalluumaysanaysaa maalintaada sugaysa. kolley qof kasta dee maalin ba maalin walba waayaheeday leedahay. waa gartay dhawaan waxaa jirtay inaad muddo kahor waxaa jirtay inaad tagteen magaalada Muqdisho. ma markii kuugu horreysay bay ahayd? magaalada Muqdisho waxaa tagnay aniga saaxiibkii Suldaan Seeraar baa isku raacnay. markaa aniga Suldaan maan ahayn, keligay ma tegin. waa gartay safarkiinaas dabcan waxaan ku weydiiyey su-aasha waxay markii u horreysay bay adigu aad tagtay. waan ogaynaa Suldaan isla socoteen dabcan mise safar horaa kaaga horreysay? markaas ay igu horreysay Muqdisho. caasimadii qaranka Soomaaliya ayaa tagtay markii kuugu horreysay. waxaad aragnaa dhibaatooyin iyo dad Soomaaliyeed oo dhibaato ku gaartay, inkastoo wanaagga ka jira uu ka badan yahay. fikirkaad ka qabtay iyo markaad cagaha ka dejisay dareenkaagu isbedelka aad ku aragtay muxuu ahaa islaada? run ahaantii markaad ka degto dee waxaad dareemaysaa soomaalinimadu waxay tahay baad dareemaysaa. dee qof kasta haddaad airport ka degto uu nin Soomaaliya ka shaqeynayo, haddaad hotel tagto nin Soomaaliya oo saf garanaysaan, isku dhaqan isku diin aad tihiin, aad ayaad ugu farxaysaa. marka kolley dee way nooga duwaneed annagu maalinkaan tagnay meelihii kalen tegi jiray. ma laga yaabaa inaad mustaqbalka dhow dib ugu noqotid haddii ala yidhahdo? dee waan ku noqon, maxaa dhacay? insha allah. waa gartay waa hagaag. waxaa kale oo jira aan ognahay toddobaadkii la soo dhaafay magaalada Hargeysa oo hoyga fanka Soomaaliyeed ah in show adugu ku qabsatay dad fara badan oo fanaaniina ay garabkaa siiyeen oo muuqaaladooda aanu arkaynay xafladda ka hor. meel kale istaagaa la waayay baa igu maqaalo ah. maxaad nooga sheegi kartaa suufanka xafladdaas waa u dhacday? horta xalfaddaas magaalada Hargeysa dad aada u qiimo badan baa jooga, aada u qalbi xaadhan, oona halkan aada uga mahad celinayay dhammaantood. waana hoygii fanka iyo suugaanta. markaa showgaan Hargeysa ku qabanay aada fanaaniintii ila soo qaban qaabisay garab taagniid aad ayaan halkan uga mahad celinayaa.
yaa ka mid ahaa kolley hadda ma tirin karo fanaaniin badan baa timiday qamar sugaani baa kamid ahaa, cabdikariin cali shaah, cali saki, najma nashaad, cabdikariin gacaliye, cabdijabaar gacaliye, bakaal ciro, oday. adu ma tirin karo fanaaniintii halkaa kasoo qeyb gashay, fanaaniin aad u badan bay ahaayeen, cabdirasaaq anshax, intaan magacoog DJ Zubair baa joogaa DJ Subeer baa joogay, DJ Maal baa joogay. DJ-yaashu iyagu laftigoodu tiro ma lahayn. waa gartay dabcan hawl badan iyo waqti badan baa gala marka showyo noocaas la qabanqaabinayo. waxay u maqaalaa sidaad rabtay si ka fiican uu kuugu dhacay, reer Hargeysana ay hagar baxeen. aad iyo aad waa gob weeyaan. aad ayaan halkan uga salaamaya dhammaan shacabkii iyo fanaaniintiiba. waa gartay ma laga yaabaa dhawaan inaad ku noqotid magaalada Hargeysa mise waayahan Jigjiga iska sii joogaysa? insha allah may waan ku noqonayaa hadduu ilaahay yidhaahdo wiigan dhexdiisa. waa gartay waxaa kaloo jirtay showgu intuu socday Hargeysa stageka inuu buuq yara ka dhacay, maxaa arrintaas ka sheegi kartaa ka ogtaa? run ahaantii wax buuqahoo ka dhacay oo showgaas soo galay ma jirin. stage haddii la joogo hees la shidana dadku waxay u yimaadeen inay iska baashaalaan oo iska ciyaaraan. marka ciyaartii iyo dee kolleysa waxaanku meesha kama maqnayn. wax buuqiyo wax dhiba naguma dhicin, si sharaf lagu qabsoomay, si sharaf lana uu dhamaaday. hagaag xariir afkiisa ayaa ka maqlaysaan dadka warxuma tashiilka suuqa la maraya. waxa weeye waxaas waxba kama jiraan, showgaasi siduu ugu talagalay iyo si ka fiican buu ugu dhacay. reer Hargeysana si gobonimo ayay uga jawaabeen. hagaag xariir waayahan dambe dabcan waxaad ku mashquulsan tahay heese kale iyo inaad barnaamijyo kale heese kale soo saartaan. maxaa iminka dab ka saaran oo soo socda? sanadka cusub baa lagu soo foolda haddii ilaahay yidhaahdo iyo beyond. insha allah cabdixaafidoo weli waxba maan qorshayn sanadka cusub insha allah. marka hadda kolley qorshayaashu way badan yihiin, qorshayaal badan baa iman karaa, laakiin hadda weli waxba maan qorshaysanin. hagaag dhowr su-aalood oo kale ayaa igu ka haray. magaalada Jigjiga ayaa joogtaa. haddii magaalada Jigjiga caawa lagaaga dhigo guddoomiyaheeda meerkeeda, waxaa ugu horeeya wax ka bedeli lahayd waa maxay maslada? magaalada Jigjiga haddii meer lagaaga dhigo, duqa magaalada Jigjiga haddii lagaaga dhigo caawa lagu magacaabo, maxaad ka bedeli lahayd magaalada kusoo kordhin lahayd maslada? kolley cabdixaafidoo haddii maaher layga dhigi lahaa dee kolley qorshooyinka markaa ii bannaan ee waxaan qaban lahaa un adartay bulshada u muhiima ee dalka iyo dadkaba u dan ah uma fulin lahaa. waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo dhulkeena hooyo joogtay, Jigjiga keliya ma ahan. Hargeysay joogaan, Garowe joogaan, Xamar bay joogaan, Baydhabo bay joogaan, Kismaayo joogaan. shaqa la'aana maxaad ka qaban lahayd bas leedahay dhalinyarada reer Jigjiga u horeeya u qaban lahayd maadaama ay mustaqbalka ummadda yihiin? horta dhalinyarta Jigjiga maadaama mustaqbalka ummadda yihiin dee waa dad dalkoodii iyo dalkoodii jooga iyo dadkoodiina dhex jooga. dee kolley dhalinyarta wuxuu ilaahay u qoro waa loo qaban lahaa, wuxuuna u qorina looma qabteen. siyaasi waad noqotay halkaas. sultaan Seyraar wuxuu igu yidhi ninkaas waa nin kaftan miiran u yidhi oo cajaa'iba. waa gartay ku jeeda saad ciyaaraysid kuga hambalyeynaya. haddaanu horey ugu soconno soomaalidu beriis iyo hilib bay isla dhacaan. cuntooyinka soomaalidu cunto noocay ugu jeceshahay islaada? no anigu kolley cuntadaasaan ugu jecelahay, ma dhaho kolba tiyo horta allaan ugu jecelahay markaan ku fadhiyo. hadba tii gabadhu karisaha. waa gartay gabagabadii iyo guraanadkii haddii aanu soo gaarno, safar miyaa hadda kugu jira waayahan aad kaga baxaysa magaalada Jigjiga meel kale ku aadaysid? may weli wax safar iima soo gelin cabdixaafidow. hadda Jigjigaan dhex joogaa, dhex mushaaxaya.
wayna ka وهجاك waxaa kaloo jira dad fara badan oo fankii suwaanta ka tegay Soomaaliyeed adiga laftigaagu waxaan fahmi karaa reerkiisa kula jeclayn xaasku kula jeclo waaladeedii iyo sharafteedii anagoon dhammaystiri karayn waxay baan ka taabanay sida waa aragtaa dadkan iminka ka baxay adigu sama laga yaabaa inaad waayaha soo socda ka baxay dadaan la yidhaahda horta cabdi xaafidow kolley waxaan anoon jeclayn baa yaad qadarta alla arkaysaa wixii adoo ku dhex jira imikana waqti cayiman ma sheegi karo markuu ilaahay waxaan naga madoobeeyo uu naga masxo kolley ma aha waxaan kusii rajo weynahay inaan kusii jiro laakiin markuu ilaahay kugu qoran baad waxaan ka tegaysaa meesha bariiska uu ka dhamaado insha Allah markaas intaan ku weydiinin waxa jeclaan ku weydiiyo dabadeedna adaa noo soo gabagabeyn doona fanaaniintii hore ee Soomaaliyeed waaweynaa inta nool iyo inta dhimatay yaad heesahooda dhegaysataa isleedahay alla qofkaas iyo ka labada ruux waa biyo kama dhibcaan horta fanaaniin badan baan dhageystaa fanaaniintii hore waa wada jeclaa dad sharaf leh ahaayeen oo fanka iyo dee erayada adu dee heesihii hore ahaayeen oo waynu wada ognahay taa marka run ahaantii aad baan u jeclaa fanaaniintii hore xasan aadan samatar cabdiqaadir jubba cabdi baadil tubeec shaymire dacar ma soo koobi karo fanaaniin badan oo jeclaa way jireen in dhimatay iyo in noolba intii dhimatayna waxaan leeyahay allah u naxariistay inta nool alla caafimaadka u siyaadiyaan leeyahay kuwa imika jooga waa fanaaniintii hore fanaaniinta dhaxashi weeyaan iyagana meel kastay joogaan anoona soo koobi karayn halkaas ayaan ku salaamayaa dhammaantood meel kastay dunida ka joogaan fanaan kasta oo Soomaaliyeed aad ayaan u salaamayaa sharaf iyo wuxuu naga mudan yahay karaamo afkeena ku heesay gabagabadii iyo barnaamijkii ereyga u dambeeya adaan kugu maamuusayaa Xariir Axmed soo waayo cabdi xaafid aad ayaan kugu salaamayaa wariye adiga ayaan kaa bilaabaya cabdi xaafid ah marka koobaad ilaahay inoo suurto geliya ayaa mahad leh barnaamijkan ku soco allah mahad leh marka koowaad marka labaad adiga iyo tiimkii soo abaabulay barnaamijkan ayaan dhammaantiin idiin mahad celinayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeedna meel kasta joogaan halkan ayaan ka salaamayaa isku duubni anoo kala qaadin haday fanaaniin tahay haday wariyaal tahay haday cameraman tahay dhammaantood maxamed xasan faarax halkan kamarada uga hayna ayaan salaamayaa santahay Xariir Axmed sharaf iyo karaam inoo ahayd inaanu wada ku sheekaysano in badan baanu qorsheynayna inaanu kulano xaqiiqatan dad fara badan oo Soomaaliya oo nagu xiran ayaa noo soo qoray nagala soo codsaday in maaragtay aanu su'aalaha ku weydiino sharaf iyo karaam anaga shakhsi ahaan yahay in maaragtay daawadayaashaba in aanu maaragtay kula kulano oo su'aalaha ku weydiino waxaan ku rajeynaynaa adiga reerkii ciyaalkaba bashbash iyo barwaaqo iyo kulan dambe oo xiiso la sax sidoo kale saaxiib macaan kulan dambe oo xiiso la sharaf ayaa anigana ii tahay maanta inaan labadeenu soo fadhiisano aad ayaan ciyaalkaaga iyo marwadaadan u salaamayaa halkan ayaan iyagana salaamayaa salaamo weeyaha wasiirka arrimaha gudaha ما شاء الله هلكن ayaan ka salaamaynaa duwaasha aad iyo aad cabdi xaafid adiguna u mahadsan tahay walaal ku salaad insha Allah waxaan kaloo jeclahay inuu mahad celiyo wariyaha weyn Cabdi Fataax Cali Shirwax oo barnaamijkan duubay isla mar ahaantaana farsameeyay barnaamijkan aad baan ugu mahad celinayaa si hagaagana Allah karaamay waxaan kaloo jeclahay inuu mahad celiyo Maxamed Xasan Faarax oo asagoo laftigiisu magaalada Jigjiga qaybta barnaamijkiisa qaybta kale ka duubayay isla mar ahaantaana ka socda Mama HD Media Production oo aan jecelahay kulligiin aad ku yaacdaan daawataan aad la socotaan barnaamijyo tayo leh iyo oo xiiso badan ay mar walba idiin soo gudbinayaan soo duubaan dadka gudaha jooga fadlan ha u daymala'aanina
lana xiriira maxamed xasan faarax oo asagoo maaragtay agaasimaha mama HD media production aad baan ugu mahadcelinayaa qofka kale oo jeceshiin inaan u dhawaan insha allahu tacaala idin soo horfariisino idinka ayaanu ka sugaynaa waxaanu idin haynaa sabraysyo fara badan oo aynaan filanaynin iyo fanaaniin kala duwan oo dunida daafaheeda jooga waa baaqi ummadda soomaaliyeed aanu ka falcelinayna haddii ilaa yidhaahdo aad baad u mahadsantihiin meel kastoo joogtaan anigoo cabdixafiid maxamuud jaamaca idinla socodsiinayay guuliya